mukhtaar roobow cali mareyle ayaa noqday wasiir. tirada kale ee xubnaha golaha kula weheliya waxaa ka miisaan magac iyo matalaad weyn wadaadkan maxbuuska ee jamhadka soo ahaa muddada dheer. lama filaan ayay noqotay in lagu arko liiska xukuumadda federaalka oo bilo ka hor u taqaanay maxbuus. roobow waxa uu qabanayaa wasaarad ay ka jirto muranka ugu badan iyo kalaartiduwanaanta loo geysto fasirka diinta. dad badan kuma qabaan roobow inuu wax ka beddeli karo wadciga iyo waaqaca diimeed ee dalka. waxayba u arkaan wadaadkan weydiimaha badan dul taagan yihiin inuu bulshada diidma aan horey loo arag kala kulmi doono. waa kuma mukhtaar roobow? mar ayuu ahaa shakhsigii ugu caansanaa waadada hubaysan ee argixisada loo yaqaano kuwooda nool xilligan. marka la eego magiciisa caanka iyo hadalladiisa hore uu jeediyey waxaa kuu soo baxaysa kan uu yahay roobow. uma aad baahnin sharaxid kale oo dheeraada. sida ay ii sheegeen dad kala duwan oo yaqaanada ahaan waxa uu ku jiraa kacaanka lixdameeyada. waxa uu ka soo jeedaa koonfur galbeed. isaga oo yar ayuu bartay qur-aanka waana uu xifdiyey. waxaase bilowgii maalmihiisa dhallinyaranimo indhaha ku kala qaaday duufaantii afghanistaan, halkaas oo ay ka soo gaartay saxansaxada qaadashada qoriga AK-47. sida uu fagaare ka sheegay May 2011 waxa uu ka mid noqday xubno Soomaaliya oo ku tababartay buuraleyda Afghanistan. maalinta kaliya ee uu farxad la ilmeeyena waxay u ahayd markii uu arkay Osama bin Laden, taasoo muujisay heerka jacayl ee uu qabay hogaamiyahoodii. soo ifbixidii midowgii maxaakiimta Muqdisho waxa uu ka mid ahaa koox dhalinyaro ah oo ka yimid Afghanistan oo ka soo horjeeday aragtida midowgii isdhex qaaday, laakiin waxa uu qabtay jagada ku-xigeenka xoghayaha gaashaandhigga oo la macno ah wasiir ku-xigeen difaac. 2007 ilaa 2012 waxa uu ka mid noqday madaxda kooxda Al-Shabaab. afhayeen ilaa iyo wasiir ku-xigeenka guud ee kooxda ayuu darajo ahaan gaaray. intii uu xilalkan hayay waxaa dhacay gaboodfalladii ugu cuslaa ee kooxdiisu ay gashay. qarxiyadii Shaamow, hargaha iyo saamaha, dilo loo geystay haldoor, qarxiyo iyo weeraro udubdhexaad uu ahaa ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof. hadalladiisa xasuusta leh waxaa ka mid ahaa: dagaalka kan xudur saaka haddii lagu kala baxo biidni illaahi tacaalaa waxaa lagu kala bixi doonaa guraceel iyo dhuusmaree biidni illaahi tacaala. ilaahay cadowgiisa oo murtadiinta ahoo dagaalamayo wixii la arko waa dil. nin nool nin wadayaan la arki. inaan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhaawaca cidna keeni karin, taasuu ahayd baraarujin iyo amar halis badan horseeday, isagoo xilligaasi la hadlayay maleeshiyaad daacad u ahaa fikirka kooxdiisii hore. maxaa laga yidhi shakhsiyadda Mansuur? 1. nin mayal adag oo dagaal wax ku doona. isagoo waa roobow. waa sida uu jecel yahay Mansuur. waa nin ka caagan wadahadal iyo wadaxaajood. waa nin aad ugu darban dagaalka. waxa uu soo hogaamiyey dagaallo badan oo jihaadi ah. lama yaqaan waxa ku riixay inuu dhiig dhex jiiro, balse hubaashii waa shakhsi yaraantiisa u banbaxay dagaalka sida taariikhdiisa ku ladhan. 2. isagoo aad u dhallinyaro ayuu u safray Afghanistan, halkaas oo uu ka soo qaatay madbac jihaadiga hubaysan. wax gorgortana kama gelin tan iyo markii uu ka soo laabtay dalkaas. waxa uu ka mid ahaa xarakooyinka aaminsan qoriga. lama hayo meel fikirkiisa jihaadiga uu wax kaga beddelay, balse Agoosto 2018 uradii ugu dambeeyey ee uu la shaqeeyey qayb ahaan fikirkooda waa uu diiday. 3. ninaan hadalkiisa la nixin. sida uu tabin jiray dhacdooyinka argagixisanimo waa kuwo toos iyo xanuun ku reebay dhammaan intii dhagahooda hadalkiisu gaaray. waxa uu xulan jiray hadallada kuwa ugu adag si uu ugu qiil raadiyo falkiisa argagixiso. hadal cad oo naxariis aan lahayn ayuu muddo warbaahinta la wadaagayay, waana kuwa uu ugu jeclaan lahaa maanta in magaciisa laga reebo. yaa keenay wakhtigan? kooxda xukunka qabsatay doorashadii dhacday May ayaa keentay xilka. agaasimaha niisa ee hadda Mahad Salaad ayaa u soo waariday madaxweyne Xasan Sheekh in la isticmaalo roobow si loo gaaro ujeeddada kooxda. aadan madoobe oo ay isku deegaan ka soo jeedaan dood iyo aragti midna kama dhiiban, mase uusan diidin. Mahad oo ay roobow saaxiib dheer yihiin ayaa isna dhankiisa u arka fursad wanaagsan oo wakhtigan uu gaaray. maxay tahay 4 ujeeddo oo magacaabistan laga leeyahay? 1. dagaalka tooska ah ee lafta gareen. sida la ogyahay roobow xukuumaddii farmaajo ayaa ka soo xirtay Baydhabo isaga oo musharaxa. waxaa lagu eedeeyay inuusan marin hannaanka buuxinta shuruudaha ka bixitaanka kooxdiisii hore, laakiin dad badan ayaa aaminsanaa inay ahay aragti siyaasadeed in hadda la magacaabay
waa in loo carbinayo ama loo diyaarinayo doorashada soo socota ee koonfur galbeed. 2 in la muujiyo xiristiisii inay sharci darro ahayd waa fariin cad oo dagaal ah loona dirayo kooxdii farmaajo. maxbuuska aad xirteen annaga ayaa sii daynay isagoo wasiir ah weliba waa fariinta labaad. 3 dad badan ayaa aaminsan inay dhiirigelin dadban u noqonaysa imaanshaha Roobow ee xukunka Soomaaliya inay kooxdiisii hore iyana ku fakaraan sida ay siyaasadda u soo gali lahaayeen oo ah inay aaminaan inay dalkaba qabsan karaan. iyo 4 inuu qayb lixaad la ka qaato la dagaalanka saaxiibadiisii shalay ee Al-Shabaab waana sababta la sheegay in loogu soo daray xukuumadda. qaar ka mid ah dhinacyada siyaasaddu qodobkan u dambeeya calaamad su'aal weyn ayay duldhigayaan sababtoo ah kooxdii uu yaqaanay Roobow way isbeddeshay hadda. haddii ciidan hubaysan uu hoggaamiyana uma akhrin karo aragtidii Afghanistan uu kala yimid. ugu dambayn si kastaba Roobow oo markan wasiir diimeed ayaa miiska talada Soomaaliya fadhiya inuu jeedin doono wacdi diimeed waa hubaal balse in laga qaadan doono ayaa xamse jawaab uga baahan. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.